السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عنو نعسن إذا لهانتيبا ومالن كي أفراد برنامج كني تجابي تعليم هذا وبرتمان ممكن مقالة قبر بيح وإحنا حجونا سوق جواب بابليكا وإحنا جينا إن شاء الله يناسب تاسو قال برنامج كني دوشون نعسن. سودو وانكدوه هذاكم بالله مقعة سؤال بنشعلنا إنكم يدينه سؤال شاسدات كتشوف تبع المرمى كلها. صح مقعي هو أحمد آذن محمد وانكدوه أحمد آذن محمد أحمد سودو سودوه أحمد سؤال شاس waxay koranaysaa imisa maalmood ama muddo intee lag ayuu nibirigu ilmihiisa caloosha ku sidaa su'aasha inaan qiyaasimo mooyaane si exactly uma garanayo waa malaha waa 12 bilood 12 bilood maalmahan ku sheeg maalmahan kulli su'aashaasi waa malaha 6 kun casho waan garan taa to kale jawaabta aad bixisay waa qalad Charles Comeror. Yeah, Charles Comeror. Charles Comeror. So do. waan ku dhawaay barnaamijka. Adoo magaca ku bilaabaya su'aal baan ku weydiinaya su'aasha haddaad ka jawaabtid abaal mar baad magacaaga. Dalmar Axmed Maxamed Bareera. Dalmar. Way Dalmar su'aal baan ku weydiinaya su'aasha haddaad ka jawaabtid abaal mar baad leedahay. Insha Allah. Muddo intee lag ayuu nibir ilmihiisa caloosha ku sidaa? 7 sano. Yeah. 7 bilood. 7 bilood. Su'aashaas jawaabteedu waa qalad. اسكو ضيفي عباس بس ان شاء الله نقول له كل شيء بركله ويا سو دو magaca ku bilaabay عبد الحب رشيد عبد سؤال بان weydiinay su'aasha dad ka jawaabta mar baad ku leeysaa hay diyaar ma tahay diyaar ma lahay su'aasha waxay koonaysaa imisa sana ayuu quraan kariimku soo degay waxaan malay muddo 25 sano agteeda dhigtay maanad saxan ان شاء الله markale guul ku rajeeyaa su'aashaas soo dhow waan dhawaay magaca ku bilaabay magacaygu waa Mahad Cali Mahad su'aal baan weydiinay su'aasha dad ka jawaabtay abaal mar baad ku leeysaa diyaar ma tahay waxa sheegtaa shayga kaliya ee uu indhooluhu sideen caadiga dadka indhaha qaba sidoo kale uu arka noo sheeg shayga kaliya ee uu indhooluhu sida dadka indhaha qaba uu arkayo waa maqalka muu arkaa maqalka ma la arkaa yani sidee u arkaa le qofka indhaha qaba sidoo wuxuu arkayo ayuu indhooluhu u arkayaa shayga noo sheeg shaygaas waa qofka nuuleen waayo qofka ma arko indhool soo dhow wandhowe magacaaga magacaygu waa Bashaar Axmed Bashaar su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha dad ka jawaabtay abaal mar baad ku helaysaa diyaar baan weydii su'aasha waxay koranaysaa waxaad noo sheegtaa shayga uu indhooluhu sida qofka indhaha qaba u arkayo su'aashaas waa waqti ma li bedel karaya su'aasha ma garanay ma isku day malaha waxa sidoo biladan ma garanay su'aashaas walaal soo dhow waan soo dhawaay su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha soo aragtaa su'aasha si fiican baan arkaa weydii diyaar ma tahay horta markii waad magacaaga ku bilow magacaaga Maxamed Cabdi Yuusuf maxamed su'aasha waxay koranaysaa waxaad sheegtaa sidee uu quraan kariim ku soo degi jiray sayaa soo gaarsiin jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam taasoo adagtay isku day taasoo adagtay waa adagtay insha Allah mar kale aan guul ku rajeynayaa walaal soo dhow waan dhawaay walaal magacaaga Xamdi Ibrahim xamdi su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha dad ka jawaabtay abaal mar baad helaysaa insha Allah su'aasha waxay koranaysaa quraan kariimku sabab ku soo gaari jiray nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam yaase u keeni jiray wuxuu ku soo gaari jiray waxyi ahaan malku jibriil baa soo gaarsiinaya macalinka rasuulka su'aashaas si sax ayaad uga jawaabtay abaal marintaada aad ku guuleysatay soo dhow insha Allah waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena iyo tijaabi tacliintaada aan si kasi gudubno si socono adeer soo dhow magacaaga Maxamed Axmed adeer maxamed su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha dad ka jawaabsid abaal marin yar oo kugu talagalay baad helaysaa saad aragtaa waa dhawaay waxaad noo sheegtaa xawayaanka nibiriga la yiraahdo muddo intee lag ayuu ilmihiisa caloosha ku sidaa ma garanay ma haysid waa ka xumahay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad mar kale aad ka qayb gali doonto barnaamijka si sax ah uga jawaabi doonto su'aasha lagu weydiiyo okay way walaal soo dhow waan dhawaay walaal magacaaga Nastax Abdi Qani walaal nastax walaal su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha aad aragtaa waa si fiican baan arkaa su'aashan haddaad ka jawaabtid hadiyad yar baad leedahay su'aasha waxay koranaysaa nabi Muuse iyo nabi Haaruun midkeeba weynaa nabi Haaruun baa weynaa nabi Haaruun su'aasha jawaabteedu waa sax hala soo siyaabo balmarintiisa walaal soo dhow waan dhawaay magaca Xamse Ibrahim
xamsi su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha dad ka jawaabtid abaalmarin baad leedahay on gala waa caadi waxaad sheegtaa shayga kaliya oo indhooluhu sida qofka indhaha qaba uu u arko wallahi tan su'aasha isku dayo ma garanayo ma garanaysid way isku day fiican inaad isku dayaan jeclaan laakiin ma haysid assalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga khadar su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha dad ka jawaabtid abaalmarin baad leedahay soo aragtaa waa si fiican dhib malo oo sax Soomaa su'aasha waxa ka oranaysaa waxaad sheegtaa shayga uu indhooluhu uu arko sida qofka indhaha qaba kale uu arko shayga indhooluhu arko wuxuu u arkaa waliba sida qofka indhaha qaba su'aasha ma garanay isku day neef ma maasante way assalaamu calaykum calaykum assalaam magacaaga cabdullaahi farax adeer cabdullaahi su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha dad ka jawaabtid abaalmarin baad leedahay soo aragtaa su-aasha waad ii sheegi kartaa dee diyaar baad tahay waayahay su'aasha waxaa ka odhanaysaa xawayaanka nibiriga la yidhaha waa taqaanaan filayaa muddo intee leeg ayuu ilmihiisa caloosha ku sidaa ilmihiisa maalmo ahaan weliba ku cabir maalmo ahaan waxaan u malaynayaa inta biyaha ku jirtaa inta ku sida in laakiin ku sido inta biyaha ku jirtaa inta leeg ku sidaa xawayaano badan baa biyaha ku dhex nool intee leeg ku sidaa qaar waxaa jira hal maalina ku dhaca bismillaahi raxmaan su'aasha sax maaha kusoo dhawow barnaamijka tijaabi tacliintaada oo si toos uga baxa baraha kala duwan ee social media ku leenahay sida YouTube Hanaan Films maxaan ku raadsame iyo meelo badan oo kale su'aashan haddaad ka jawaabto abaalmarin baad leedahay diyaar ma tahay diyaar baan waan dhawahay waan soo dhaw su'aasha waxa ka oranaysaa muddo intee leeg ayuu quraanka kariimka soo degay quraanka kariimkii wuxuu soo degayay muddo 23 sano ee nabiga maxamed ma sha Allah jawaabtaasi waa sax soo dhaw waan dhawaay magacaaga mubaarak saxane mubaarak su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha dad ka jawaabtid abaalmarin baad helaysaa soo aragtaa waan soo dhaweynayaa mubaarak waxaad ii sheegtaa shayga kaliya ee uu indhooluhu sida qofka indhaha qaba u arkayo shayga kaliya indhooluhu sida igu cilbal su'aasha waa shay uu indhooluhu u arkay sida qofka indhaha qaba kale ma garanayo wallahi su'aasha waayahay weli waxaa socda barnaamijkii tijaabi tacliintaada assalaamu calaykum calaykum assalaam warahmatullahi wabarakaatu magacaaga cabdullaahi kaafi su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha haddaad ka jawaabtid abaalmarin baad leedahay diyaar ma tahay su'aasha waxaa ka odhanaysaa waxaad noo sheegtaa shayga uu indhooluhu sida qofka indhaha qaba u arkayo shayga indhooluhu sida qofka indhaha qaba u arkayo waxay noqonaysaa moobeelka talafaga bismillaahi raxmaani raxiim weli maanu arag soo dhawow waan dhawaay walaal waxaad ku bilaa magacaaga abadri abadri su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha haddaad ka jawaabtid abaalmarin baad helaysaa su'aashaas waxaa ka odhanaysaa waxaad noo sheegtaa shayga uu indhooluhu sida qofka indhaha qaba u arkayo su'aasha ma garanayo bedel isku day haddaad qiyaastid maxaa odhan leed laakiin haddaad qiyaastid ma garan su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha haddaad ka jawaabtid abaalmarin baad leedahay waxaad noo sheegtaa waxaad ka jawaabtaa ama aad noo sheegtaa quraanka kariimka sidee buu u soo degiyaa soo gaarsiiyay nabiyullaahi maxamed cali salaatu wasalaam waxa soo gaarsiiyay bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantihiin haddaan su'aasha isku dayo waxa soo gaarsiiyay malakul jibriil oo ka soo qaaday allah kadibna oo nabiga loogu soo dhibay saas buu quraanku ku soo gaadhay nabiga waayahay su'aasha jawaabtaas waa sax giftiisa la soo siiyo wiil السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga عبد الرحمن اسماعيل. su'aal baan ku weydiinay soo aragtaa diyaar baan عبد الرحمن su'aasha waxa ka oranaysaa waxaad noo sheegtaa shayga kaliya oo indhooluhu sida qofka indhaha qaba u arkayo waxa weeye malaha waa nasraacad aan malay ukiyalaha ma laakiin axmed xaashi oo garabkeena taagan soo dhawow horta barnaamijkan weydiintu aad iyo aad buu fiican yahay bulshada faa'iido leh sababtoo ah diintii maartay aad ku dhalatay aad ku dhaqantay in wax laga weydiiyo oo aad wax ka barato anu waxaan u arkaa inuu yahay cilmi maartay waa aqoon cilmi ku kordhay ama aad ka koraysanto waa aqoon weeyaan anu waxaan u arkaa waa jaamacad marka laga faa'iideysto si fiican ha looga qayb galo waad arteen Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo meel kasta in laga qayb qaadanayo Soomaaliya oo dhan marka barnaamijkan aad faa'iido leeyahay si fiican loo qabato way ma santahay
waxaan intaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena tijaabi tacliintaada oo si toos uga bixi jiray baraha bulshada channelada ama youtuberada ama page-ka aan ku leenahay baraha bulshada sida YouTube-ka Raadsame Hanaan Films iyo sidoo kale Facebook Cabdiraxmaan Qodambi barnaamijka maanta intaas inoo yahay Ramadaan Mubaarak